waalida teknolojiyadda caalamkan aynu joogno waxaynu markhaati ka nahay xawaaraha sareeto ay ku socoto teknolojiyadda. haddaba qofku waa inuusan ka harin tareenka socda ee teknolojiyadda. haddaba daawade waxaan kula wadaagayaa 10 xirfadood oo muhiim ah dhanka mustaqbalkaadii. haddaba daawade ha moogaanin inaad ku dhaqantid 10kan xirfadood, xitaa mid ka mid ah waa inaad ku dadaashid barashadeeda maadaama ay ku anfacayso mustaqbalka dhow. 10kan xirfadood waxaa la rajaynayaa inay noqon doonaan xirfadooyin sanadada soo socda yeesha dhaqaale fiican. haddaba ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. inta aynan guda gelin muuqaalkeena maanta, fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad horey nala joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan iyaguna xirfadahanita. haddii aynu ku bilowno xirfadda koowaad waa software development, waa hagaajinta website-yada iyo sidoo kaleeto hagaajinta apps-ka. waa wax ugu muhiimsan ee ay raadinayaan sida shirkadaha waaweyn iyo ganacsiyada. waxay u baahan yihiin dad u sameeya website-yada ay ku ganacsan lahaayeen dhanka online-ka iyo sidoo kaleeto apps-ka. waa kuwa door muhiima ka ciyaara ganacsiga caalamkan aynu joogno. haddaba qofka waa inuu horumariyaa barashada xirfadani software development. tusaale ahaan shirkadaha waaweyn sida Google iyo Facebook waxay raadinayaan xirfadlayaal noocan ah si ay u horumariyaan iyaguna website-yadooda iyo sidoo kaleeto apps-kooda. xirfadda labaad aynu soo qaadanayno waa artificial intelligence, caqliga macmalka. dunidani waxay u socotaa dhanka AI-ga ama sirdoonka macmalka. wuxuu xalinayaa dhibaatooyin badan oo kala ah sida ganacsiga, caafimaadka iyo wax soo saarka bulshada. barashada AI-gu waxay kuu sahlaysaa inay kuu furto wadooyin badan oo aad ku heli kartid fursadooyin shaqo. haddaba ku dadaal inaad horumarisid xirfadaadii dhanka AI-ga. xirfadda saddexaad aynu soo qaadanayno waa xirfadda digital marketing, waa suuqgeynta online-ka badeecadaha macaamiisha. maadaama ganacsiyada caalamkani ay rabaan in loo geeyo badeecadahooda dhanka online-ka, maadaama dadka ay u soo guurayaan dhanka online-ka. haddaba waa fursad weyn oo kaaga furan dhankaasi inaad sii horumarisid xirfadaadii digital marketing ama suuqgeynta online-ka. haddaba ku dadaal inaad si fiican u baratid digital marketing-ka. xirfadda afraad aynu soo qaadanayno waa freelancer. freelancer-ku waa inuu qofka uu ku shaqaystaa isagoo jooga gurigiisa, isagoo la shaqaynayo kambani kaleeto ama shakhsi kaleeto, isagoo u samaynayo xirfadihii hadda aynu ka soo hadalnay oo kaleeto. waxaa muhiima qofka inuu si gooni u barto xirfadda freelancer-ka. freelancer-ku sidaynu horey usoo sheegnay waa qofka oo si shakhsiya u shaqaysto isagoo u shaqaynayo dadyo fara badan oo kala jooga daafaha caalamka. haddaba inaad noqotid qof freelancer ahi waxay kaa dhigaysaa qof dhaqaalihiisa xor u ah. xirfadda shanaad aynu soo qaadan doono waa xirfadda e-commerce. e-commerce waa ganacsi internet ah. waa adigoo dukaankaadii sida magaalada uu kugu furan yahay oo kaleeto ayaad online-ka wax ku gadanaysaa adigoo helayo macaamiil fara badan, maadaama dadku ay inta badan isticmaalaan social mediaha. adigoo maanta ka faa'iidaysanayo internetka xawaaraha uu ku socdo, waxaad furan kartaa dukaan online ah adigoo dukaankaadii alaabihiisa ku iibinayo dhanka online-ka. waxaa la yiraahdaa e-commerce, taas oo kuu fududaynaysa inaad heshid macaamiil fara badan. xirfaddeeni lixaad aynu soo qaadanayno waa xirfadda graphic design ama video editing. waxaad kula shaqaysan kartaa dadyo fara badan oo kala jooga caalamka adigoo u shaqaynayo qof ku soo gudbiya muuqaaladiisa social mediaha ama sidoo kaleeto warbaahinta waaweyn ee caalamka ayaad la shaqayn kartaa haddii aad si fiican u baratid xirfadda muuqaal samaynta ama sidoo kaleeto sawir samaynta. xirfadda toddobaad aynu soo qaadanayno waa xirfadda blockchain-ka iyo sidoo kaleeto cryptocurrency. haddii aad si fiican u baratid cryptocurrency iyo blockchain-ka waxaad ka caawin kartaa shirkadaha waaweyn inaad la ilaalisid amniga internetka, gaar ahaan kriptada iyo blockchain-ka. haddaba qofka waa inuu si fiican u bartaa
xirfadahani maadaama ay leeyihiin suuq fara badan caalamkana waxaa ku soo kordhayo isticmaalka kiribtaha. xirfadda sideedaad aynu soo qaadanayno waa xirfadda data analysis. xogtu waa hantida ugu qaalisan ee shirkadaha, maadaama ay doonayaan shirkaduhu inay ilaashadaan xogtooda. waa inaad baratid data analysis. waxay ka caawinaysaa shirkadaha qofka bartay xirfaddani inuu u ilaaliyo xogtooda shakhsi ahaan ee shirkadaasi. haddaba ku dadaal inaad baratid xirfaddani. xirfadda sagaalaad aynu soo qaadanayno waa xirfadda hal-abuurnimada ee qofka uu leeyahay si shakhsi ahaan. haddii aad leedahay hal-abuurnimo, waxaad samayn kartaa ganacsi yar oo adiga ku gaar ah. tusaale ahaan, samaynta agabyada guryada, farsamada gacanta, ama waxyaabaha dhaqanka ee ka jira dalka ayaad samayn kartaa adigoo ku shaqaysanayo si maxalli ah shaqadaasi. xirfadda tobanaad aynu soo qaadanayno waa baridda online-ka. sida koorsooyinka online-ka lagu bixiyo waa mid si weyn looga faa'iideeyey sanadadii aynu soo dhaafnay. dadku waxay fahmeen koorsooyinka lagu soo gudbiyo online-ka inay leeyihiin dhaqaalo fara badan oo looga maarmo inaad shaqooyin kaleeto aad qabatid. haddaba baro xirfado marka horeeto, kadibna u soo gudbi dadka adigoo kaga faa'iidaysanayo qiimaha yar ee aad ka qaadaysid dadka, maadaama koorsooyinku ay gataan dad badan. haddii koorsadaadu ay gataan dad badan, waxaad ka faa'iidaysaa inaad ka samaysid dhaqaalo fara badan. haddaba daawade, waxaan kula soo wadaagay 10 xirfadood oo la rajaynayo in sanadada soo socda ay noqdaan kuwo mushaar fiican leh. haddaba daawade, ka faa'iidayso waqtigaagii oo geli xirfad si beritoole aad si nashaad ah ugu shaqaysatid xirfadaha aad maanta baranaysid. waqtiga aad maanta shaqaysid waxaad u baxsanaysaa beritoole. haddaba ku dadaal inaad naftaadii hormarisid mar walba. muuqaalkeenna maanta intaas ayaynu kusoo gebagabaynaynaa. fadlan daawade, ha iloowin inaad nagu soo biirtid haddii aad nagu cusub tahay. haddii aad horey nala joogtayna, fadlan muuqaalka like saara oo la wadaag asxaabtaada. intaynu ku kulmi doonno muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.